kulanti wacan saaxiibayaal meel walba joogtaan magacayga waa Qaliiji saawad ogtihiin waxa sanadkan ku jiro 2026 ka dhacayo gobolada qaar ee wadanka Jarmalka doorashada golaha ajaanibta ee loo yaqaano Ausana Bayqaad gobol badan ee ka dhacay sanadkan gobolada ugu badan ee ka dhacayso waa gobolka Hessen oo ay Soomaalidu ugu badan ka degan tahay wadanka Jarmalka doorashada waxay dhacaysaa 15 Maars ee sanadkan ku jirno marka ugu horeysa waxaan inaan idin faahfaahiyo waxa ay qabtaan qoladan golaha ajaanibta ama Ausana Bayqaadka saarahan dadka Jarmalka ah ama dadka dhalashada Jarmalka haysto markii arkaan xisbi oo danahooda ka hadlayo awood bixi u leeyahay xisbigaas doortaan saalahan oo kale marka dhalashada Jarmalka haysto oo aad shaqeyso oo aad aragto xisbi dhahayo hadii aan doorashada ku soo guuleysto waxa idin kordhinaya mushaarka iyo waxyaabo noocaas camal ah qofka markaas Jarmalka ama baasaboorka Jarmalka haysto awood ay u leeyahay xisbigaas inuu doorto si isla markaana hadhow markii uu guuleysto shaqo mushaarkiisa loo kordhiyo waxyaabo la mid ah arintaas waxa sameeyay kaliya marka dadka dhalashada Jarmalka haysto marka dadka aan haysan ee magaalada ku nool waxa la ayagan si baahidooda loo ogaado waa in dad ayaga matala loo sameeyaa isla markaana baahidooda ama baahiyaha gaarka ayaga ay qabaan loogu gudbiyo dawladda marka Ausana Bayqaadka hoosh ugu muhiimsan ay qabato waxay tahay in baahida dadka ajaanibta ay qabaan oo ay u soo gudbiyaan isla markaana dawladda ama dadka waxaha markaas shaqada ku leh si ay baahidooda ay ugu hadlaan ama ay ugu doodaan ama xisbiga markaas meeshaas jiro oo mawduuca u noqoto wax badan ka bedeli karo marka taas waa sida ay u shaqeeyaan laba hool oo muhiim ah qabtaan hool kale oo muhiim ah runtii qabtaan laakiin labada hool ugu muhiimsan waxay tahay number 1 in ay matalaan bulshada ajaanibta ah ee ku nool magaalada oo ay baahidooda u soo gudbiyaan sadaa hore idinku sheegay iyo sidoo kale in ay ka shaqeeyaan arimaha isdhaxgalka magaalada inay bulshada magaalada joogto ay isdhaxgalaan dadka Jarmalka ah iyo dadka ajaanibta ah in ay dhaqamadooda isweydaarsadaan in ay dadka ajaanibta luqadda wadanka ay bartaan in ay taariikhda magaalada ay degan wax badan ay ku ogaadaan iyo sidoo kale in ay yihiin dad wada noolaan kara wada aqbali karo qof walba nooc oo yahay waxa uu yahay diinta oo haysto dhaqanka oo haysto in lagu aqbalo qofka isla markaan dadka ay si wada jira wada noolaadaan marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee inta badan ay ku shaqeeyaan waa labadaas noocood iyo mashruuci kale kala badan oo dadka ajaanibta ah ay qusayaan marka qof walba wuxuu isweydiinaa marka baahida qofka ajaanibiga ah goon u qabi kara maxay tahay baahiyooyin badan ay qabaan dadka ajaanibta ah ee magaalooyinka ku nool saalahan oo kale markii aad magac ajaanibi wadato oo aad rabto in aad guri raadsato ama shaqo raadsato inta badan markii magacaaga la arko oo inuu magac ajaanibi oo yahay waxa laga yaabaa inaan ugu soo jawaabin ama diidmo hor laga sii adigoo guriga xataa soo arkin ama waxyaabo kale lagu weydiin halka qofka markuu magac Jarmal wato isla markaa guriga hore laga siiyo ama shaqooyinka hore oo ka helo marka waxyaabo inta badan ay ka doodaan markay kamid tahay qoladaas ay dhahan okay dadka ajaanibta ee magaalada ku nool markay guriga noocaas camal raadsanayaan lama siiyo si gooni ah loo fowqa iyo waxyaabo kale noocaas la mid ah iyo cunsurnimada kale meelaha qaar ee cunsurnimo ka jirto oo dadka ajaanibta aad loogu cusriyo in ay ka hadlaan oo ay u soo bandhigaan dawladda si arintaas wax loogu qabto marka hoosh ugu muhiimsan ay qabtaan ruuxanti taas waay yaa ka qayb galay waxa ka qayb gali kara qof walba oo ajnabi ah oo xisbi ka diiwaan galsan oo isla markaana maxaa la sheeg shakhsiyan loo dooran karo xisbigiisana la dooran karo warqado balaakaati arkaan magaalooyinka aad degantihiin waa laga yaabaa in meelaha waaweynka lagu soo dhajiyo sawiradooda ay xisbiyada ka diiwaan galsan yihiin sidoo kale waxaa dooran kara dadkaas qof walba oo aan haysan dhalashada Jarmalka qof walba baasaboor ajnabi ah haysto ama Soomaali ah ama Carab ah wuxuu doona ahaado in oo dadkaas oo dooran karo shakhsi ahaan u dooran karo sidoo kale u dooran karo xisbi ahaan oo u dooran karo xisbigiisa guud ahaan oo dooran karo xilkaasna markii la doortana xisbigaas oo u soo guuleystay waxa ay haynayaan xilka muddo 5 sano ah oo 5 sano walba waxa dhacayso doorasho cusub sanadkii la soo dhaafay Soomaaliya ugu badan oo ka qayb qaadatay golaha ajaanibta waxay ahaayeen magaalada Kassel sidoo kale toodna waxa gadoomiye u ahaa golaha ajaanibta markaas magaalada Kassel yar Soomaaliyeed oo ahaantii Soomaaligii ugu horeeyay oo Jarmalka oo madax ka noqday golaha ajaanibeed sanadkan Soomaali badan ayaa ka qayb galay waxay ka dhacayaan doorashooyinka caasimadda gobolka Hessen ee Wiesbaden sidoo kale magaalada Kassel oo ah magaalada ugu Soomaali badan gobolka Hessen magaalada Gießen Marburg Friesland iyo runtii magaalooyin kale oo badan oo ka tirsan gobolka Hessen iyo guud ahaan gobolada kale ee wadanka Jarmalka ah dadkan marka oo ka qayb galay golaha ajaanibta ah ee doorashada ka qayb galay u tartamayo waa dad si mutadawacnimo ah ku shaqeeya ma ahan dad mushaar ku qaata ma ahan dad lacag extra lagu siiyo waa dad waqtigooda energy-gooda u huray si ay ummadda kale ay u helaan cadaalad iyo wax walba caqabad ayaga markaas hortaagan in ay ka hor qaadaan marka ma ahan dad mushaar u doontay ma ahan dad wax kala gooni ah raadinaya ama interest gooni ay raadinaya waa dad waqtigooda u qasariyay adiga iyo bulshada kale ee ku nool magaaladaada in aad baahiyaha qaaska ah qabtiin
ay dowlad idinkugu gudbiso si arrimihiina loo xaliyo. Marka haddii aad Soomaali tahay waxaan kula dardaarmayaa oo aad aragtid dadkaas inay sharxay yihiin Soomaalida ah in aad marnaba ka hagranin qof Soomaali ah codkaaga meesha doonaha ka soo jeedo wax doona ha ahaado maxaa yeelay mar walba oo ay Soomaali badan golaha ajaanibta ay tagto waxa imaanayso mar walba oo baahiyaha qaaska ah oo ay Soomaalida ay qabaan in dadkaas loo gudbiyo oo ay kamid tahay tusaale ahaan baahiyaha Soomaalida ay qabaan in aanan la aqoonsaneyn dokumentiyada Soomaalida oo kale markay meelaha qaar oo sanabihoodiyada u geeyaan iyo waxyaabo kale oo la mid ah marka waa dadkii wax ka bedel lahaa baahiyaha sida qaaska ay u qabaan Soomaalida ku sugan wadanka Jarmalka marka haddii aad taqaanid qof Soomaali ah oo magaalada kula degan ee barka u tartamayo waxaan ka codsan lahaa inaadan taageernimada marnaba aadan ka xaqrin isla markaana codkaaga aad siisid haddii uu Ilaahay raado inta kulan ku xisab badan kulmi doona Khaliij ah fi amaan Allah.